kumeel gaarka ee Soomaaliya ee shirka jaraa'id maanta ku qabtay gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxay ka hadleen arrimaha la xiriira doorashada madaxweynaha iyo kan gudoomiyaha baarlamaanka oo maalmihii ugu dambeeyay laga hadalhayay magaalada Muqdisho iyo war-saxaafadeed maalintii shalay ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawladda kumeel gaarka ee Soomaaliya ka uu ku aadanaa xilligan inuu san dhici karin doorashada madaxweynaha mudanayaasha baarlamaankana ayaan arintaas xilligan qaban karin ugu horeen waxa halka ka hadlay xildhibaan Ali Maxamuud Farax Sheeko oo ka warbixinaya axdiga kumeel gaarka ee dawladda u dagsan iyo arrimaha la xiriira qodobka afraad ee axdiga kumeel gaarka Jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu leeyahay waxa axdiga loo turjumayaa habka ah ee horumarinta dib u heshiisiin qaran midnimo iyo qiyaamka dimuqraadiyadda horumarinta qiyaamka xukun wanaaga labo sare u qaadidda sharafta wadajirka xuquuqda iyo xorriyadda asaasiga ah iyo ku xildhibaan Sheeko ayaa sidoo kale ku eedeeyay beesha caalamka gaar ahaan ergeyga gaarka ee qaramada midoobay qaabilsan arrimaha Soomaaliya Augustino Mahiga inuu ka soo horjeedo horumar ay ku tilaabsato dawladda kumeel gaarka ee Soomaaliya oo doonayo in ay burburto xukuumadda Soomaaliya qaramada midoobay waxa weeye hadda wuxuu ololeynayaa inuu Soomaaliya dawlad la'aan soo dhigo dawlad la'aanta uu soo dhigayna sababaha uu ku keenayo waxay tahay inuu yiraahdo wixii sidii horeba u dhici jirtay baarlamaanka maantana uu diiday inuu yiraahdo baarlamaankii xasaanada qaranka Soomaaliyeed haystay ee xambaarsanaa iyo madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliya ee astaantii qaranka ahaa iyo golihii wasiirada ee ummadda Soomaaliyeed u shaqeynayay constitutionkii dhisnaa boolansigiisu ku socday axdiga kumeel gaarka inuu waxba yahay inta ka soo qaado oo dad degmooyin ka keeno aan haysan wax mandeed ah iyo wax hadii Ilaahay ku roon yahay hadda sharciyada soo aruuriyo kuwa kala diyaasbara dibadaha ka keeno kuwa kale isaga uu jecel yahay ama uu wato uu keeno oo xiro ku soo wada xireeyo gudoomiyaha guddiga warfaafinta baarlamaanka dawladda kumeel gaarka ee Soomaaliya xildhibaan Awad Axmed Cashara oo kamid ah xildhibaanadii maanta shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa isna sheegay in baarlamaanka Soomaaliya ay horumarin doonaan doorashada gudoonka baarlamaanka kadibna ay qaban doonaan tan madaxweynaha taa uu sheegay in iminka la qorsheynayo waxa weeye baarlamaan hadduu dhamaado waqtigiisa oo la bilaabayo wax la doortaa ra'iisul baarlamaanka maxaa jira waqtigii baa dhamaaday waa la doortaa ra'iisul baarlamaan afkii laga soo galaayay hadiise uu baarlamaan jiro oo baarlamaanku jiro oo marka madaxweynaha waqtigiisu dhamaado markaas wax la doortaa madaxweynaha laakiin baarlamaan hadduu dhamaado oo baarlamaanka hadda la dhaariyo mar labaad oo baarlamaanka uu isbedelo hal iyo hore wax la doonaa ra'iisul baarlamaanka dooranaya kii wax ka qabayo waa kaas hadalkani ka soo baxay xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka dawladda Soomaaliya ee ku aadan doorashada madaxweynaha dawladda Soomaaliya la xiriira doorashadaasi sidoo kale idinka u jeedin beesha caalamka ay imaanaysa iyadoo maalintii shalay gaarka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka ay siyaabo kala hadleen arrimaha doorashooyinka iyo khilaafaadka soo baxay mas'uuliyadda dawladda Soomaaliya maxamed TV caalamiga ah oo